kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qaayaha naga mudan ee ku xiran bartan YouTube-ka Idaaja Media ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. waxaan muuqaalkan ku soo qaadan doonaa Ramla Cali, nolosha gabadha Soomaaliyeed ee guulaha badan ka gaartay tartanka feerka. waa tuma gabadha adduunka ka qayliyay ee dalkeena Soomaaliya kuma talaysa tartanka feerka Olombikada adduunka ee bishan lagu qaban doono caasimadda dalkaasi Japan. waxaad ka ogtahay inay gabadhan ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxaan dul istaagi doonaa noloshii adkeed iyo safarkii dhibka badnaa ee Muqdisho ilaa iyo xeryaha qaxootiga Kenya. xeryaha qaxootiga ilaa iyo magaalada London ay hadda ku nooshahay. maxay tahay sirta ka dambaysa guulaha waaweyn ee ay gaadhay? sidoo kale waxaan barnaamijkan ku faahfaahin doonaa dhacdooyinka la yaabka leh ee ku hareeraysan nolosha gabadhan. mar kale daawada ku soo dhawow nolosha iyo taariikhda Ramla Cali. magaceedoo dhammaystiran waa Ramla Saciid Axmed Cali. waxay 16 September 1989 ku dhalatay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. waxay ahayd ilmo yar markii ay qoyskeedii ka carareen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay kadib burburkii dowladdii dhexe ee 1991. Ramla iyo qoyskeedii waxay dagaaladaasi ku waayeen ama ku dhintay walaalkeedii kadib markii meel aan gurigooda ka fogeen ay bam kula qaraxday. waana sababta soo dedejisay in Ramla iyo familkeeda ay qaataan go'aanka ah inay dalka ka tagaan. safar dhib badnaa oo qaatay 9 maalmood kadib waxay si nabad ah ku gaareen xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya. nasiib wanaag muddo kooban kadib Ramla iyo familkeeda ayaa helay dib u dejin dal saddexaad ah oo ay ku tageen dalka boqortooyada Britain. waxayna ugu dambeyntii degeen guri ku yaala bariga magaalada London ee caasimadda dalkaasi Ingiriiska. Ramla Cali waa aqoon-yahan Soomaaliyeed oo feeryahana isla markaana qoraa ah. waana gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed oo feeryahana, wuxuuna magaceeda taariikhda kaga qoran yahay baal dahaba bilowgii xirfadeeda. waalidkeeda ayaa u diidanaa inay noqoto gabar feeryahana, laakiin dadaal dheer kadib Ramla waxay guulo waaweyn ka gaartay ciyaartan. waxayna ku soo guulaysatay biladii horyaalka qaranka England ee Novice sanadkii 2015 iyo England Elite Championship sanadkii 2016 iyo kuwo kaloo aad u badan. waxayna tartamadaas oo dhan ku matalaysay dalkeeda Soomaaliya. Ramla ayaa waxay guursatay Richard Moore, sidoo kale ah tababaraheedii ciyaarta feerka, wuxuuna kaalin weyn ku leeyahay guusha xaaskiisa. familka Ramla marna ma dareemin in riyada gabadhoodii tahay inay noqoto gabar feeryahana. xilligeedii iskuulkana waxay xooga saari jirtay oo ay saacado badan ku bixin jirtay meelaha laga barto ciyaartan. waxayna guriga imaan jirtay ayadoo xiran muraayado iyo koofiyad si ay hooyadeeda uga qariso nabarada ka soo gaaray tababarka ciyaartaasi. waxayna sirteeda ku qarsan jirtay walaalkeedii ka yaraa oo arrintaa ogaa. si kastaba ha ahaatee Ramla ayaa hadda ah gabadha dhan walba ka diyaarsan ee dalkeena Soomaaliya ku matalaysa ciyaarta Olombikada adduunka ee 23 bishan lagu qaban doono dalka Japan. waana rajo aad u sareysa inay guulo kala soo noqoto tartankaasi. annagana waxaan leenahay Ramla, guulayso oo garabkaagii baan nahay. daawadaha qiimaha mudan, waxaan halkaa ku soo koobayaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee aan kaga hadlaynay Ramla Cali. inta aan ku kulmayno barnaamijka xiga, Idaaja oo idin leh haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe dheh, gambaleelka taabo oo asxaabtaadii ku share garee.